أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kastoo joogaan dal iyo dibad. waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka qaaliga ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meeshaad iga daawanaysaan ama iga dhageysanaysaan waa Khadiija Aadam Official. kusoo dhawaada channelka waa channelkiini gacmo furan iyo qalbi nadiif ah. intii hore ila joogtayna waad mahadsantihiin, intii dhawaan igu soo biirtayna shukran aan idin leeyahay walaalahay. daraasad iyo garab istaagteen waa ku mahadsantihiin. inaa waa mahadsantihiin idin dhahana kama daali doono insha allah. walaalahay maxaa inoo wadaa maanta? qiso hadda ka hore dhacday oo xilligii lasoo kala qaxay oo Soomaaliya dhan soo yaacday, Kenya lagu soo qaxay dhacday ayaan kaga sheekeynayaa. saas bay u dhacaysa qisada. waxaa la yidhi laba nin baa saaxiibo ahaa, yacni Soomaali baa laga soo tegay, Kenya la soo galay. marka Kenya dee jaad badanaa ka jira la dhahay, oo jaad badan baa ka jira la dhahay, ma ahane jaad baa laga cunaa oo ragga cunaan. labada nin marka saaxiibay ahaayeen oo wada qayli jireen alla. marka mid baa reer lahaa, kii reerka lahaa kan kalan reer ma lahayn, kan buu la noolaa, yacni u ka agdhowaa xoogaay. reerkii yacni waa la cunteyn jiray, waa la qayli jiray, waa isku meel bay joogeen. marka ninkii reerka lahaa dadkiisii baa usoo biiri jiraa lahay. marka xoogaygii lacagta jaadka lagu cuni jiray, qaarna dee reerka aa biirin jireenaa lahay. maanta dan waxaa lahayd dee saan markasta biil soo diro ma noqonaysee responsor waxaa la dhahaa loo soo diray. ninkii labada ninaa sheekaystay waxaa la wareede ninow wala hebelow walaalahii baa responsor ii soo diray, anigana dee responsor ma rabo, jaadkan inaa iskala joogaan rabaa, maxaa tila ah? bal waan kasoo fikiraynaa maalin dama lasku imaaday. war responsorka maxaad ka dhahday? waxaan ka dhahay responsorka dee aniga ma rabo, saan yeela ma garanaayo. reerkeyga inaan baxay rabaan, ama jaadka inaan ka taga ma rabo. ninkii saaxiibkiisa ahoo reerka aan lahayn oo iskaabulada ahaa wuxuu dhahaa lahay, walaalo aniga ilmaha kuu dhoofinaya xaaska responsorka igu soo wareeji. warsaas miyaa ahaa? waayahay waa kugu wareejinayaa waay. ninkii markaa ilmihii wuxuu kaxeeyaa la ilmihii iyo xaaskii adiga wadamaha qurbaha meel ka mid ah ayay la galeen oo la galay meeshii yacni loo wadayay tageen. markii ay tageen ninkii hadee waa lala soo xiriiri waayey. xaaskii iyo ninkii waday iyo ilmihii dhan waa wada aamuseen. ilmaha dee dadka waaweyn unbay umagta u taliyeen, haddee qof weyn oo qaangaar ahayn. markaasaa waxaa la yidhi ninkii haddii meel uu ka raadiyey malaha. dadkii mar hore yani uu ka dhashay oo responsorka usoo dirayna waxaa la dhahay way xanaaqeen, waxay ka goosteen biilkii. ninkii Kenya ku rafaaday oo jaadkii iyo wixiiba yani biil la-aantii iyo jaadkii baa isku qabsad maxaa la dhahaa iskugu tagay. nin aan wax haysanin oon calooshiisa u dhargeyn jaad hadduu cunana dee wuu sii qalala. marka ninkii meeshiiba ku jactadaa la dhahay, uu ku rafaaday, uu ku qalalaa la dhahay. markii dambe rag buu la tashtay. marka ninkii intuu ninkaan la tashanin, ninkii wuxuu sameeyaa lahay naagtii iyo gabadhii kaxeeyey iyo ilmihii maamadii waxay tiraa lahay, oo ninkaas waxa nooma haayee uuna dayacay, haddee aniga ada isguursan, aniga ilmahaban iska keena qaaday, yacni mas-uul naga noqo. sidii bay isku afkarteen aan lahay. gabadhii ninkii guursaday oo kaxeeyey ilmihiina dee ayadaaba dhashay soo ma aha.
ninkii marka rag buu la tashtaa lahay. ragga markuu la tashtay war waxaa la yidhi ninkan saas makuu galay haa saas buu ii galay ilmahayga iyo xaaskayga intuu wato duurka la galayoo dee qaraabadii iyo tolkaygiina dee way ugu naceenoo dee waa anigaa xumeeyayo saas baa dhacday. haye war waxaa la dhahay ninkan qof hooyadiis ha la raadiyey, qof asagoo biil usoo dira ha la raadiyey oo yani waalidkiisa ama walaalihiis wax saas oo gabar ah oo qof dumar ah la raadiyaa la dhahay. waa la raadiyey waxa la wareegaba waxaa lasoo helay hooyadiisa weyn, maamo weyn oo dee asiga dhashay oo ninkii naagta ka guursaday aa lasoo helaa la dhahay. maamadii haddii waa la shukaansaday oo ninkii uu shukaansaday adiga waa isku afgarteen inay isguursadaan. marka wiilkii oo ninkan xaaskiisii guursaday wuxuu dhahaa la dhahay hooyadiisu soo biilaa markasta ula soo hadlaa. markaas xaalay waxaa la dhahay hooyadiisu la soo hadlaa hooyo iyo waran see tahay. markii dambe waxay tiri wareedhe nin baan isguursanay hooyo waa ku faraxsana maasha allah waa idin soo biilaa hooyo ninkaagi ay adiga maasha allah iska jooga waa Kenya. markii dambe wuxuu dhahay hooyo waa idin dhoofinaya kan maba hadlaayo midkan saaxiibkiisa oo hooyadiis guursaday maba hadlaayo allah. qiso cajiib waaya maba hadlaayo yani ninkii lama hadlaayo oo isma tusinaayo inuu asaga yahay oo aamusin. ninkii maamadii baa baanisay diiftii iyo rafaadkii iyo wixii soo gaaray yani wuu ka bogsoodaa lahay. nin qurux badan u noqday oo dee islaan ilaahay siiyey oo xoolo haysata ma garateen. markii dambe wuxuu yidhi waa hooyo waa idin dhoofinaa adiga adeer haye hooyo kheyr allah ku siina dhoofi. sponsor uu soo diray marka waana soo yani xilligii waqtigii wax la marmaraayo wax loo marmaraayo. markii dambe dhoofitaankii way kusoo guuleysteen way soo baxeen diyaaraddii way soo raaceen wadankii qurbaha loo socday meeshii ay u socdeen. markay tageen diyaaraddii dee meeshii bay ku degtay waxaa usii istaagay ninkan oo maamada guursaday xaaskiisa iyo ninkii saaxiibkiisa oo xaaska kale ka guursaday. xaaskii ilmaha u dhashay ninkii ka guursaday ayaa airboortka usii istaagay. ayay markii soo degay ay asagii soo hormaraan lahay wuu soo degay labadan aabinaa ka taagan haye waa isfiirfiiriyeen alday waaba yaabeen. haddana hooyadii baa kusoo xigsatay ayadaa soo degtay. markaas hooyadii bay isku duubeen oo isa salaameen oo markii la salaamay kabacdi waxay tiri alle haddii adeerkiin waa kanaay salaam. meeshii baa waxaa ka dhacday yani arrin oon la filinaynin baa ka dhacday. markaasaa dee meeshii loo socday gurigii markii la tagay waxaa la yidhi ninkan oo naagta ka guursaday oo mar hore gabadhan iyo ciyaalkeeda soo kaxeeyey ma aha kii maamada guursaday. wuxuu dhahaa la dhahay labada xaas ba anaa isku qaba yani xaaskayga hore aniga ma furin adaa yani iga xoogtay yani adiga waad i xumaysay anigoon furinaad yani guursatay. xaaskan yani hadda waa qabaa leedahay anigaa qabo oo sharciga muslimka haddii la fiiriyo sharci muslim baa ku dhaqmayna soomaali iyo muslim haddaan nahay. hooyadan anaa qabo labada xaas ba anaa isku qabaayo waa anaa iskale anaa isku qaba diinta muslimka haddaan ku dhaqmayna labada xaas ba anaa lehay wadada guriga ii dhaaf waa waryaha magaaladaas gal haddii kale haddaan qaadanayaa waxaa waaye askar baan kugu yeeri. ninkii marka sidii baa uu ku faacshirmaa lahay ceebtiisa ibnaanka u soo baxday. hooyadiisa iyo naagtii waa qaba u dhahayayna waa laga qaatay oo ninkiibaa ku wareegay.
ninkiina waxaa lay magaaladaada gal kolley waxaa samaysay waa samaysay marka ninkiina wuu soo dhoofiyey yani hooyadiisu guursaday xaaskiina waa laga qaatay. marka akhyaaray qisadaas idinla wadaagayay waa qiso la yaab leh, waa qiso cajiib ah. ninka ballanta haddaan waxaa lay ballan haddaa ka baxday ballan dari waxaa leeyahay diin daray leedahay. marka ninkii ballanta ka baxay oo xaaskii kala guursaday isagana haddii hooyadiisa lagu soo dhoofay, ma fahanteen? jaadkana wax fiican ma ahan. jaadkii baa saas u galay ninkaas. nin dhan oo responsor loo soo diray oo lahay waa lagu dhoofinaa, yani saas dhibkaasa ku dhacay. jaadna wax fiican ma aha. ragga jaadka cunaayo ama rag iyo dumar waxay ahaadaanba jaadka iska ilaaliya. jaad wax fiican ma aha. yani haddaa reer leedahay waxaan ku dhigaa reer la-aan, ciyaal la-aan, wixii aad reerka siisan laheydba waxaa kaa qaadanaya jaadka. maanta yani mas-uul baa tahay, mas-uulnimadu kaa qaadaya. jaadkun baad aqli ka dhiganaysaa. marka intaan jaadka cunayna allah noo barakeeye, intii jaadka cunaysana allah soo hanuuniye. jaadka dhibkaasuu leeyahay. marka ragow jaadka iska daayay, ilka la-aan baa laga qaadaa. yaa ilka la-aan baa laga qaadaa. wax faa-iido uu leeyahay male. yaa marka jaad wax fiican ma ahan. yaa xoolo la-aan iyo waxaa laga qaadaa ilka la-aan. marka ilaahay ha laga magan gala. jaad inuu wax fiican ahayn waa la ogyahay. sidaas idinla wadaagayay waa cajiib. marka kheyr aa isku ognahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.